السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وان سلامي رمض الصومالية مربع جوتان سيبا دلني رضا يكل دمان انت جعل انك شقيستان سوقان فوركس هذا بس سوقان فوركس وسوق وين فانت سوماليين كشقيسته مدة كلا waxaa jirta muxuu ahayd dhalinyaro badan ee haddana ku soo biiray haddana isaga baxay suuqan horta qasaaran uu leeyahay faa'iidana uu leeyahay laakiin haddii aad baratid qaabka uga shaqaysan lahayd qasaarada way yaraanaysaa muddo 3 sano ka hor waxaa jirta aniga waxaan ku biiray meel yara IML bishii lacag laga qaaday $160 laga qaaday haddana wax aad ka faa'iideysid ma lahan ilaa hadda waxaa jirta dhalinyaro dadka geeya IML aan geynayna nagu soo biir IML ma aha meel suuq lagu barayo waa meel dadka keento aad lacag ku helaysid qaabkaas aad ku shaqaysaa laakiin real suuq ah wax aad ka faa'iideysid ma lahan aniga ahaan kula hadlayo waa soo maray muddo kadib 3 sano ka hor alxamdulillah kadib haddana waa wareegay waan dadaalay aakhirkii waxaan soo helay sida ugu fiican ee suuqan looga shaqaysto suuqa horta waa laba qaybood bangiyada iyo shirkadaha waaweyn oo lacagta haysta iyo dadka shacabka ah marka qaab system ay ku trade gareeyaan jirta bangiyada ay ku trade gareeyaan jirta qaabkaasna haddii aad soo fahantid waa ka guul gaaraysaa muddana markaan ku soo jiro alxamdulillah waa barta hadda maanta waxaan la wadaagayaa qaabkaas aniga aan ku trade gareeyo waa iska easy haddii videoga aad daawateena commentiga igu soo qor haddii aad rabtiin in aan video badan aan ka sameeyo ruleskeeda iyo xadan qaabka marka in la wadaagayo 1 hour oo trade gareey kartaa 4 hour oo trade gareey kartaa daily haddii aad doonaysid macnaha trade bear oo swing trade inaad iska haysatid waa uga trade gareey kartaa marka qaabkan ugu fiican horta waxa la yiraahdaa muxuu ahay order block waa maxay market imbalancing way market imbalance-ga markaan bartaan ku sharaxi doonaa waan la idin wadaagi doonaa suuqa bartaan ka dhaqaaqay oo socday soo noqday kor oo aaday soo noqday suuqan abtareedu iska ahay abtareed markuu suuqan ka ahay halkan marka suuqa down trade markii soo ka imaaday suuqa halkaas aad down trade ka imaaday waxba yaan warkii ugu daalay videogan idinku dheereeyo ma rabo down trade ki suuqa halkaas ku dhameystay ka bacda trade suuqa halkaas ka bilowday halka korkaas u tagay suuqaas okay suuqan wuxuu soo wareegaba halkaan oo imaaday oo support ah turkan halkaas suuqa imaaday suuqa markuu halkaas u joogo marnaba suuqa bartaas buy ha uga gelin waa bangiyada qaabkii u trade gareeyaan sababtay dadka lacagta ugu qasaaraana ama haddii aadan aqoon system ugu qasaarid waa suuqa halkaas markuu imaado buy aad arki doontaa okay kulli marka waxa la sameynayaa qof walba dadkii dhan way galayaan halkan buy u galayaan waa support okay maxaa dhacaya marka suuqa buy beeno macnaheedu halkaas ka tusaya adiga 60 bib 70 bib ujeedka laakiin ujeedana anaga waxa waaye 100 iyo 150 bib inaan qaban 200 bib sababta ku qaban kartana waa easy suuqa markuu bartaas imaado buy beeno oo tuso maxaa dhacaya ku soo kala wareegaa suuqa meesha marka waxa yaala marka muxuu ahayd suuqan lacag badan halkaas taala lacagtaasna waxa waaye dadka stop loss koodi areas waa stop loss koodi qof walba stop loss xaq u dhiganaya suuqa laakiin market imbalance order block waxa lagu halkan suuqa intaas waa imbalance suuqa waa sagxad banaan sababta uu suuqa halkaas buy been ugu sameeyo ku soo noqonaya waxaan stop loss ka meeshan ku jira iyo qaadanaya marka qaabkan wax waaye
muxuu ahaa down trade halka imaada suuqa last bearishkii candleka ugu dambeeyay candleka salka ugu dambeeyay kontonkiisi markuu imaado oo waxaan stop loss soo xaaqo bartaasa marka suuqa waxa ka dhaqaaqa bahal bullish ah aan ka yareen 150 pip waxaan stop loss markuu qaato ka bacdi suuqa kor u faniinaya imbalance kale kugu soo dhow marka suuqa waa halkan areas horta waa qaabkaas videogan kuma dheeraanayo waa hordhac marka qaabkaas aan ku trade gareeyaa maantadan aan la hadlayo ku trade gareeyaa waxa waaye GBP JPY haddii aan la wadaagana waa tana suuqii 4 hour tag suuqan up trade wareegay halkaan u imaada suuqa marka halkaan markuu imaaday buyga idin sheegay macnaha lahayn waa kaasa meeshan waxa yaala stop loss dadka lacagtooda taala waa laga xabsaday meeshan marka waxa ku jira candle waxa ku jira bearsha inta uusan dhaqaaqin up trade candle inta uusan bix suuqa candle waxa ku jira meesha bearsha marka waxa uu isticmaalaysaa fibka candlekaas kontonkiisa 50% kiisa kaas waa meesha lagu leeyahay order block ama market imbalance fibka naga tuur soo noqo marka meesha marka waa sagxad meesha stop loss dadka laga qaaday oo ka qaatay bangiga lacagta oo imaada suuqa maxaa dhacay marka usoo haadayay waxaan stop loss markuu qaatay bam uu dhaqaaqay maxaa u jeedaa marka suuqa bartas ka dhaqaaqay 133 bid waa weygaas horta qaabka ugu fiican aan u trade gareeyo bangidan u trade gareeyaan lacag walba dul tagtana suuqa meel walba ku tagtana waa arkaysaa hadda aan tagtano CAD JPY oo kale 4 hour tag meel walbo support ah markuu suuqa imaado ma aaminin baya ka baxay laakiin meesha maxaa ku jira imbalance waxa la yiraahdaa suuqa buygan dhaqaaqay suuqa waxa lagu yaqaanaa buygaas markuu dhaho suuqa inuu soo noqdo oo macnaha oo kor u socday pullback saas oo suuqa caadi ku socda suuqa maxaa ku garanaysaa marka market imbalance ama order block meesha ka xigo suuqa markuu iska dhaqaaqay eeridan maxaa waaye sagxad qaawan waa suuqa ku soo noqon hal mar halkaas ku soo noqonaya meeshan dadkii ku trade gareynaya muxuu ahaa double top iyo double bottom iyo waxaas ma shaqeeyaan ee lacagtaada qof walba ha ku khasaarin okay halka marka waxa ku jira one candle up trade kan halkan waa imaan doonaa suuqa at least laakiin waa inuu eerida hadana imaada barta marka maxaa ku jira up trade kan imbalance-gan suuqa xoog uga dhaqaaqay waxa soo helaysaa candle-kan kontonkiisa meesha maxay yiri dadka lacagtooda taala mar walba meeshan stop loss ka yaala dadka stop loss kooda okay stop loss markii looga dhufto waxa imaanaya candle beno macna lahayna buy aadaya boom hoos soo dhacaya akana hoos uga soo dhacay 7 bit konton bibna doosi maraya horta qaabkan ku trade gareeyo waa qaabkaas mid kale Soomaali badan waxa arkaysaa dadkii maalinta ku xareystaan lahaa lacag aan la sameeynayna muxuu ahaade groupkan ku soo bir lacag bixi bil walba war qofka hadii uu lacag
forex ka helayo kama oo raadiyeen qof kale oo maskiina aan waxba aqoonin kama raadiyeen lacag lacagtaas ka badan kuna noolaa lahaa horta taas qof walba oo maskaxdaada ka dhacdo ani qof aan lacag rabaa ma jirto qof aan lacag weydiina ma jirto group aan leeyahay oo jira lacagna lagama baxsho waa free signal kan qaadanayo waa siya waa free way qaataan wax lacag lama weydiiyo qofkii rabana groupkaas wuu soo gali karaa wana ku soo biiri karaa linkigiisana hoosan soo dhigi doona insha Allah wallahi groupkaas ma sha Allah lacagtay sameeyaan tan sameeyay ila sameeyaan maalin walba oo signal kan la wadaago video inta badan ka duubaa kuwana lacag la wadaago marka haddii aad doonaysid ku soo biiri kartaa groupkaas wax lacag lagama rabo waa free haddii aad doonaysid videokeena soo duubo commentiga igu soo qora waa mahadsantihiin waan islaamaya dhamaatiin assalaamu calaykum